banaanbaxa dowladda Belgium looga codsanayo inay sii deyso madaxweynihii hore ee maamulka Ximin iyo Xeeb iyo Maxamed Cabdi Afweyne oo ku xiran dalkaasi Belgium ayaa waxay ka dhaceen deegaanada ay ka taliso maamulkaasi Ximin iyo Xeeb sida faafinta warkaan magaalada Dhuusamareeb nooga soo diray Jamaal Macalin Axmed oo halka Soomaali Channel uga soo warama banaanbaxana waa mid si weyn loo soo agaasimay inay soo qabanqaabiyeen dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada una kala qayb galay maamulka Godinlabe ee Ximin iyo Xeeb ayaa waxa ay ku dalbanayeen in dib xorriyadooda loogu soo celiyo Maxamed Cabdi Xasan Afweyne oo lagu xiray dalkaasi Belgiumka oo ay sheegeen inuu ka mid ahaa ganacsada Ximin iyo Xeeb iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee maamulka Ximin iyo Xeeb Maxamed Cabdilaahi Aadan Tiice dhammaan dadka ka qayb galay banaanbaxa ayaa ku dhawaaqay ereyo ka dhana gacan ku haynta Maxamed Cabdi Xasan Afweyne iyagoo sheegay inuu gacan weyn ka geystay sidii dhalinyaro badan oo ku dhaqana deegaanka Ximin iyo Xeeb iyo gobolada dhexe ee dalka Soomaaliyaba sidii looga reebi lahay howlaha burcadbadeednimo oo beesha caalamka ay si weyn muddooyinka ugu dambeeyay saameyn ugu yeeshay dhaqdhaqaaqooda dhinaca badda iyo barigaba dadka ayaa dhammaan lugta soo mariyay xaafadaha kala duwan ee ka kooban tahay magaalada Godinlabe waxaana sidoo kale ay aakhirka isugu yimaadeen fagaaraha Godinlabe iyagoo halkaasi ka soo gudbiyay khudbooyin kala duwan ay ku cabirayeen banaanbaxooda waxa uu ku saabsan yahay waxaana hadalladoodii ka mid ahaa waad maqlaysaan adduunyadu way og tahay wixii ka jiray badda waad og tihiin 2 sano wax ma garatay badda wax galay ma leh haddii la kuuriyay nabadgelyo noqotay maraakiibtu saacadda waxay loo martaa oo xeebaha ay u martaa 10 mayl bay u martaa dowladda Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu dagaal u galo sidii lagu soo doonahay muwaadiniinta Soomaaliyeed oo ah madaxweyne hore Ximin iyo Xeeb iyo ganacsada Maxamed Cabdi Afweyne in qabkii uu soo bixilay annaga maanta dowladdan hay qofka dad gasho waa in wadankeeda iyo hawsheeda loola xisaabtamo marka waan soo dhaweynaa xagga burcadbadeednimada iyo isbaarooyinka iyo nidaam darrada iyo qabyaalaysiga labadii nin ee ka keentay inay xalliyaan labadii qof oo ku amniga lahayd weeye ammaanka maanta Soomaaliya dhan ay ku marto dalka Ximin iyo Xeeb oo ay martida ugu tahay ama si ay ku safaraan labadii qof oo ka dambeysay weeye Maxamed Cabdi Xasan iyo Maxamed Cabdilaahi Aadan Tiice madaxweynihii Ximin iyo Xeeb ugu horeeyay nabadgelyada iyo ammaanka iyo ku soo celinta nidaamka asaasiga ah iyo ninka burcadbadeed ay ku nasabidanayaan waxa weeyaan xaliyihii deegaanka Ximin iyo Xeeb burcadbadeed ka xaliyay asagoo ahaa markii horeeto nimankii ka shaqayn jiray mariiniska badda ahaa ka shaqayn jiray boostada ka shaqayn jiray dabadeedna markii sida xil kale iyo sida nidaam darrada ay xadgudubka ay ula dhaqmeen dadweynaha maraakiibta ee shisheeyuhu ay dhibaatadii ay u geysteen wixii ay ka geysteen maxaa tiraahdaa xadgudubay dadka xuquuqaha bini'aadamka u dooda ka codsanaynaa in loo soo celiyo sharaftoodii lana soo daayo oo loo soo celiyo sharafkoodii iyo xorriyadoodii loo soo celiyo dadka ninka waxqabadkiisu mudan yahay intaasoo khalqiga xareeyay waqtigii ballanta lala galay ilaa haddeerna aan wax badcabadeeda aan adduunka la arag waxaan ka codsanaynaa madaxweynihii hore iyo muwaadinkaasba inay noo soo daayaan dowladda Belgium waxaa ka soconaya banaanbaxyo xoogan oo u muuqda kuwa si isku mid ah loo soo abaabulay dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ay soo qaban qaabinayaan maamulada deegaankuna ay kala qayb galayaan Cabdi Jamaal Macalin Axmed Soomaali Channel TV Dhuusamareeb